Assalaamu calaykum sheekadii guusha ee Jack Ma waa muwaadin u dhashay dalka China kaasi oo ku guuldareystay inuu ku biiro college tiraba 3 jeer ugu dambeyntiina wuxuu si dirqiya ku dhaafay imtixaankii kadib markii uu sameeyay diyaarin iyo dadaal caadiga dhaafsan wuxuu isku dayay inuu shaqo ka helo maqaaxi cuntada lagu kariyo laakiin badankoodii way diideen in shaqada geliyaan kadib markii uu codsiyo badan oo shaqo ah meelo kala duwan u dirsaday ee loo diiday ayaa waxa uu go'aansaday inuu shaqo macallimo ah raadsado sababtoo ah wuxuu ku guuldareystay inuu shaqo taa dhaanta uu helo Jack Ma wuxuu dhigi jiray luqadda Ingiriiska isagoo qaadan jiray lacag ka yar $10 bishiiba ka hor intii aanu bilaabin dhigista luqaddan Jack Ma waxa uu jeclaa inuu horumariyo habka ugu hadlayo luqaddan waxaanu 45 daqiiqo ku haysan jiray baaskiishiisa maalin walba hotel u dhow oo ay dadka dalxiisayaasha ahi ku soo degi jireen si uu ula hadlo luqadda Ingiriiska kuna sii horumariyo Jack Ma kuma qanacsanin shaqadiisa waxaanu go'aansaday inuu u guuro dalka Mareykanka si uu u helo nolol ka fiican tii uu ku noolaa wuxuu bartay kombiyuutarka iyo internetka aad baan u jeclaa markii dambana wuxuu aasaasay website-ka loo yaqaano alibaba.com kaasi oo u saamaxay ganacsiyada iyo shirkadda ay ku kala ganacsadaan iskuna dhaafsadaan alaabta si online ah Alibaba wuxuu noqday ninka ugu taajirsan dalka China hantidiisana maanta waxaa lagu qiyaasaa $21 bilyan waxaa loo aqoonsaday inuu ka mid yahay 25 ganacsade ee ugu awoodda badan qaaradda Asia Jack Ma muu haysan wax lacag ah oo uu ku bilaabo ganacsi wuxuu ku shaqayn jiray mushahar aad u yar waxaanu si dirqiya ugu biiray oo uu ku guuleystay inuu ku biiro maxadka tababarka macallimiinta intaa waxaa dheer in waddanka Shiinuhu aan waqtiga ahayn meel ku fiican in lagu noolaado ganacsina laga bilaabo Jack Ma dhaqaalihii iyo lacagtii uu haystay sanadihii ugu horreeyay kama badna intaad haysta maanta haddii aanay intaad haysta kaba badnaynba ninkan wuxuu aad u jeclaa oo kaliya inuu abuuro ganacsi guuleysta taasina waa sababta uu u raacay riyadiisa uuna xaqiijiyay haddaba waa maxay cudurdaarada aad maalin walba naftaada u sheegtaa lacag kugu filan ma haysto waxbarasho fiican ma haysto dadka igu xeeran ma dhiirigelinayaan haddii aad waxyaabahan ku sugan tahay weligaa ma noqon doontid mid meel gaadha Jack Ma muu haysan qof dhiirigeliya oo cadaadiya balse damaca xooggan ee gubay si uu guul gaadho ayaa ka dhigay ninka uu maanta yahay casharada laga bartay Jack Ma wax walba waa suurtagal waxa suurtagal ah inaad ka bilowdo ganacsigaaga meel aad u hooseysa oo aad noqoto bilyaneer Jack Ma wuxuu tusaale fiican u yahay dadka ka soo bilaabay meel ka hooseysa zero iskuna dara liiska ugu sarreeya ee taajiriinta adduunka 2 horaa loo sameyn karaa sharci ma aha balse horaad ugu guuleysan kartaa Jack Ma wuxuu gaadhay guul isagoo jira da'da 30 3 marka ay riyadaada iyo hamigaagu weyn yahay waxyaabaha hoose kuma dhibi doonaan